siyaasiyiinta aqoon-yahanka cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka gobolka Sanaag ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha cusub ee loo doortay talada dalka ee 5 sano ee soo socota Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaana shacbigu madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa Ilaahay uga baryeen inuu xilka ku asturo waxa kale oo shacbiga gobolka Sanaag ay bogaadiyeen murashaxiinta labada xisbi ee u ciidiyay wadani sida ay u aqbaleen go'aankii natiijada doorashada waa kuwan qaar ka mid ah shacbiga gobolka Sanaag oo bogaadiyay madaxweynaha cusub ee la doortay waxaan halkan hambalyo uga diraya madaxweynaha xilka ka sii degaya oo ahaa aabihii Soomaaliland casriga ahaa aasaasihii xisbiga kulmiye waxaan iyana isna aad u hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo aan leeyahay hambalyo Ilaahay inaan uga baryay inuu xilka ku guuleeyo waxaan kaloo iyana halkan maanta hambalyo uga diraya dhammaanba shacabka Soomaaliland sidoo kale waxaan iyagana u soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin hambalyana aan u dirayaa saddexda xisbi qaran in labada laga guuleystay ee natiijada aqbalay waxaan kaloo iyana halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa kubashanka qaranka Muuse Biixi Cabdi ayaa aanu leenahay hambalyo waanu leenahay waxa ilaah mahadi ah madaxweynihii sadcaalkiisii ugu dambeeyay gobolka Sanaag ku soo maray baahida taala indhihiisa ku sii arkay waxaanu leenahay madaxweyne aad iyo aad baanu ku hambalyeynaa madaxweynaha xilka qabtayna waxaan leeyahay Ilaahay madaxweyne xilka kugu dhawro soo dhaweyn madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku guuleystay doorashadii waxaan leeyahay waa salaamantihiin kan helayna waa hambalyeynaa kuwa laga helayna waa hambalyeynaa waxaan u qabanay inaanu ku hambalyeyno madaxweynaha cusub ee ku guuleystay madaxnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha ku guuleystay doorashada Muuse Biixi Cabdi Xildiid mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo dhammaan shacabka Soomaaliland hambalyo saddexdii xisbi ee ololaha wada galay kii guuleystay iyo kuwii hambalyeeyay labadaba ee haniyay intaba waan salaamayaa waana hambalyeynayaa dhamaantood dardargelinta kaambeynka ee gobolka Siciid Jibriil Xasan waxaan halkan imika aan ka hambalyeynaya guusha madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi waxaan sii sagootineynaa madaxweynaheena rugcadaga Axmed Maxamuud Siilaanyo waa dadweynaha reer Ceergaabo iyo gudigoodii dardargelinta kaambeynka ee xoojinta hambalyo Muuse Biixi waa u ducaynaynaa marka kale aadanu nahay shacabka gobolada bariga Soomaaliland waxaanu nahay shacab goba caasimadii madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba waxaanu isugu darnay gobolada galbeedka Soomaaliland kubaddu maanta waxay taalaa xagga galbeedka Soomaaliland waxaanu leenahay waxaad nagu abaal gudaysaan baanu idinka sugaynaa horumarka uun isa soo dhaafiya oo iminka Hargeysa iyo Gabiile iyo Booramo hawranina weeyaan dawladii madaxweynaha cusub Muuse Biixi madaxweyne ku-xigeenka labadaba uu hambalyeynaa maanta Muuse Biixi xil baa fuulay waxa fuulay xilkii ummadda reer Soomaaliland oo dhan mid u codeeyay mid aanu codayn mid ka codeeyay dimuqraadiyadda ku jirta in axsaabta loo codeeyo oo la tartamo oo la kala guuleysto waa wax ka mid ah dimuqraadiyadda kurkumada ay ku taagan tahay bay ka mid tahay Yunus Axmed Saalax Universal TV Ceergaabo